markana shaka ka duwan warbixinada aad ku soo maqasheen qaybihii hore ee barnaamijka waxaan eegaynaa khayraadka walla ku manaysay Soomaaliya. Haddaba xijiga ama meydiga waa geed si weyn uga baxa buraleyda gobolada Bari iyo Sanaag, waana mid ka mid ah khayraadka ay goboladaas dibadda u dhoofiyaan. Hase yeeshee dadka deegaanadaas ee ka shaqaysta ka ganacsiga xijiga ayaa waxa ay tahay xabagtiisu mid aad u udgoon tahay ayaa dhib badan ka maraarintaasi marka ay soo guranayaan si ay u geeyaan. haddaba waxaa degmada Baargaal ee gobolka Bari tagay wariye Maxamed Xasan Dhalo oo warbixintan ku eegaya bal geedkaas iyo sida dadka ka shaqaysta ay uga faa'iideystaan. waa kolka la gurayo xabagta xijiga oo ah geed ka baxa buuraha gobolada Bari iyo Sanaag, waxa uuna kaalinta saddexaad kaga jira ilaha wax soo saar ee Puntland, waana halka laga keenay magaca Puntland dhulka uduga. Baargaal oo 360 kiiloomitir u jirta Boosaaso oo ay bari ka wada tirsan yihiin waa deegaan saaran badda Hindiya. dadka ku noolna 24% waa xijeysato. wuxuu ka baxaa meelaha buuraha ah oo aadka waliba u qarbo. waa gudoomiyaha Baargaal Cabane Cayna Muuse oo ka waramaya xijiyada ku yaal deegaankan. geedkan degmada Baargaal waxaa la qiyaasaa ilaa 400 xiji oo midkiiba 4 qof ay shafeecsan karto. waxaanu dawladda hoose degmada Baargaal ee aanu maayar ka ahay aanu hadda liis garaynay in ka badan 3,000 oo reer inay qoys inay ku nool yihiin maydi. waxa uu ka baxaa buuro magaalada ka durugsan oo aan subax u jarmaadnay annaga oo sii maray wadooyin cagaaga. soddon iyo 8 kiiloomitir markii aan Baargaal ka soconnay ayaan tagnay dhulkii xijiga lahaa. waa buuro dhaadheer, beeyo iyo maydi ayuu u kala baxaa geedkan. midka gobolkan Bari ku badana waa maydiga oo leh hab looga shaqeeyo sida uu sharaxayo Bootaan Muuse Maxamed. geedkan baa la imanaya baalkan migaafka la yiraahdo la sitaa waa la dhaawacaya marka lagu sameeyay marka waxa ka imanaya caano ama canan ayaa ka imanaysa. qolof baa dusha ka maraysa meeshii u dhaawacay. qolofta waxaa loo diidayaa inay gaarto heer ah inay iyadu inta iska bogsato meeshii ee qolofta iskaysa ka dhacdo oo geedka sidiisa ku soo noqdo oo doorsato waa lagala dagaalamaya. ragga ka shaqeeya xijiga waxa ay degan yihiin godad dabiici ah hoostood. hawsha gurista faleenkuna waxa ay socotaa muddo sanad ah inta aan la iibgeyn. Maxamed Cartan 30 sano ayuu shaqadan hayay. waxaan sameynaa suuxdaan ku safnaa maalintaas soo baan jiraa ilaa 5 galabnaan ka soo degnaa ilaa iyo 10 maalin baan ka shaqeynaa. kadibna guryaha qabanaa xafada iyo Baargaal lukaas qabanaa togan ilaa iyo 40 baan ka shaqeeyaa. waxa jeesita maydugu waxa uu ka lushaa dhadhaabo iyo qarar halis ah. ragga xabagta ka gurana hawlyari kuma haystaan. mararka qaarna waxa ay wajahaan halis sida uu sheegayo Nabadoon Cabdullaahi Caynab oo dhacdooyin u soo joogay. way ka soo daataanin oo waa ka dhacaanin dadka sarcaya sanadkii ugu yaraan waxa ka dhaca ilaa iyo 3 qof meelahaas 4 qof baa sanadkii qarka ka dhaca oo xijeysta way u dhintaan ama way u dhugmaan oo way jajabaanin oo shaqada ma uma noqdaanin. dhib kasta ha laga maray marka sanad kaamila geedka laga rogayo caanaha fuula oo lagu kaydinayo godad roob celis ah ayaa ugu dambeyn loo raraa magaalooyinka. gaarigu looli buu qaadanaya dulaal baa jira waa la sii saaraya isbaarooyinka jidka marsalan meesha ugu badan oo laga dhoofiyaa waa Boosaaso. waxa la sameeyaa lacag yar baa laga qaadaya oo birqaad leeyahay isagay fuulaysa. Boosaaso markuu tago dhirta iyo daaqu lacag bay ka qaadanayaan. wasaaradda maaliyadduna lacag bay ka qaadanaysaa. dawladda hoose degmada Boosaaso waxay ka qaadanaysaa dejin wax la yiraahdo. adiga kartoonkaas waxa fuulaya lacag ah $5 $6 ayuu Boosaaso ku tagaya oo siyaada. kolka Boosaaso la geeyo ayaa loo xil saaraa haween u kala saara dhowr jaad. Caaisho 20 sano ayay kala guraysay xabagta xijiga. markana waxa ay u dalacday in ay ku kormeerto haweenka kala saara. salaad baan soo dhimay guriga halka san imaada waa kala guraa kan waa maydi bayadna waa taal labada nooc ka shaqeyna is lacagtan waxaan sii rag yaga jablayaasha. goorta ay dhamaato hawsha kala saaristu ayaa laga dhoofiyaa dekada magaalada Boosaaso. wadamada khaliijka ayaa ugu badan meelaha ganacsatada Soomaalidu u dhoofiso, laakiin waxaa faleenkani gaaraa qaarada kale sida uu ka waramayo Sakariye Axmed Maxamed oo buu ka qoray wax soo saarka xijiga. waxaan arkay inuu maaragtay la Ingiriiska kaniisada Ingiriiska uu tago waaweyn Vaticanka Buddhiska dhammaan meelaha wax lagu caabudo dhan wax weeye aad ayuu u tagaa. waa maydigaas aad ayaa looga jecel yahay
oo waxa weeye waa lagu shitaa ama ha noqoto buudhis ama ha noqoto hinduus ama ha noqoto muslimiin ama christianity yahuud dhammaan meelaha lagu caabudo dhan fooxaasi uu ku dambeeya maydu ku dambeeya xijeysatada iyo ganacsataduba waxa ay qabaan in wax soo saarkan dabiiciga ahi uu sidan dhaami lahaa suuqiisu haddii uu heli lahaa jidad iyo daryeel kale dowladduna dhimi lahayd cashuuraha dhowrka goor ku dhacaya maxamed xasan dhalo boosaaso